الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخيار شرفت المال وعن كبير إنسان مركو رسول وهذا برنامج كان قدال ده على قشر جرين دونا أما حلقة في فرصة أما لو في فرصة وحدة وانا هاي زمان إن شاء الله سبسكرايب جري حارون تاعي كتلينتا وحارون كشقيسة سيدي شعب وسوما وجاري هاي يعني أيوة وذا كتشلان دبل بتكين صوت دورتان هوجان أيوة إليهن دبل بتكين ما وكشقيا دنا هو دي مصالح دور مركي أي بجي ويان شقة أي ودان أي كوريجيان أنقلنا مركب برنامج كمان عن هالكان كلام waayahan dambe waxaa batay taageerayaashii hore maxamed cabdullaahi farmaajo inay idaacadaha la soo fariistaan oo yidhaahdaan dowladdan waa inay raaligelin ka bixisaa waxyaabihii hore u sheegtay ay weli ku sii indha adag yihiin dhibaatooyinkii faraha badnaa ay waddankan ka geysteen oo isla markaasna ilaa iyo hadda aan weli loo raacin marka maanta qodobka aan raba inaan ka hadlo sida gaarka waxay tahay ciidamadii soomaalida ahaa ee laga qaaday waddanka soomaaliya 2019 ee la geeyey waddanka eritrea maxay ahaayeen halkan maanta marka waxaan rabaa inaan cadeymo idinkaga keeno xaqiijinaya in ciidamadaas la afduubtay hooyooyinkii iyo aabbayaashii dhalay in laga afduubtay ayagana ayagoonan khiyaar u ahayn la geeyey meel aysan ayagu rabin taa waxaa ka dhalanaysa markaan caddayna arrintaas in dowladdaani maanta markii ay waalidiintooda la hadlaysay laga raba inay siiso xulashadaas oo lagu yiraahdo waxaad rabtiin ilmihiina inay shabaab la dagaalamaan oo dawladda ee qaranka Soomaaliyeed mise waad ka noqonaysaa ilaan dagaalku waa doorasho askariga lama khasbi karo annaga maadaama xarunta ay ka talinta annahayna arrintaas aad inoogu weynta shariicada islaamkana waa ku weynta arrintaas oo macnaa shuurada asal ee khiyaarka qof hadaa la kiidma xataa jannada badal kiidma naarta dib la badal kiidma qofkii u talaa inuu kala doorto mid waadina marka waxaan rabnaa marka ugu horeysa halka inaan idin xaqiijino in baarlamaankii waddanka Soomaaliya uusan ogeyn ciidamadaas la geeyay Eritrea kuwa taageeray waxay yiraahdaan maya walaalayaal maxaa la yiraahdaa beesha caalamka laga qarinayo meel cadayna ay ku taala ma jirto waa banaan tahay ciidamo fara badan la tago maya 18 kun inay ka bataan 18 kun ma la gaarsiin ciidamada hadday ka badan yihiin 30 kun 45 kun ay gaaraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo booliska militariga iyo wax isugu darsan iyo dawlad goboleedyada marka lagu daro marka wararkaas waa barar raqiis oo cadayn rasmi ah aan haynin ilaa hadda qof cadayn keenana ma arkin marka ciidamadaas waxaa laga qariyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa laga qariyay taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga qariyay waxaan ka dhageysana marka Eritrea sababa dhinaca amniga awgeedna dalka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi dalka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine balse ay ku hawlgasho magaca dawladda Eritrea qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20 bishii Oktoobar 2019 waraysigan warbixintan waxaa diyaarisay VOA codka Mareykanka diyaarisay Harun Macruuf oo maaragtay nin xadiistiisa oo soo wariyo lagu kalsoon yahay been aan lagu barano cadeymo fara asaga kaliya ma ahan cadeymo kale oo fara badan aan keenayna marka aan dhageysano marka intaasi wixii ka dambeeyay mawduucan hadda ay soo gudbinayna galka baarista waxaa laga sii daayay 16 Febraayo 2021 duulimaadyadu waxay ku socdeen si istaba joog ah inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019 haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawa Yusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd 3 bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay oo u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea arinta Eritrea ciidan loo qaaday aanu kulli ma garanayo ee wasiirku meel kale wada ciidanka keenay ma aysan jirin Eritrea ciidan loo qaaday xoogga dalka Soomaaliyeed aanu kulli ma ogin taas galka baaristu waxa uu la xiriiray sarreeyo guud Odawa Yusuf Raage si aan uga waraysano arrintan hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aan u dirnay qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus halka marka waxaa ka cad khiyaanta sharafta la meel caalamka dhageysanaysaan baarlamaankii waddankana ma ogeyn wasaaradda gaashaandhigana ma aysan ogeyn yaa marka hawshan waday hawshan wasaaraddii gaashaandhiga aysan ogeyn baarlamaankii waddanka Soomaaliyana uusan ogeyn aan la marin xeerarkii loo maraayay markii ciidamo la diiwaan gelinayo in ciidamo la diiwaan geliyo la tababaraayo wadamo shisheeye loo diraayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu ogaado haddii kale waxay noqonaysaa barnaamij u dhaxeeya laba shakhsi oo madaxweynaha Eritrea iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki hadday saa tahayna waxaa ka dhalanaysa labadooda danaha ay leeyihiin inay ciidamadaas ku fushadaan Soomaa
caddaynta koowaad marka waxay ka imaanaysaa halkan articlekan waxaa la yidhahdaa clandestine training of Somali forces in Eritrea is serious families concern VOA-da codka Mareykanka ayaa waxaa lagu daabacay Febraayo 19 2021 waxaa lagu sheegay qoraalkaas qoraalkaas waxaa lagu sheegay oo halkan aad ka arki kartaan in ciidamadaas Soomaaliya inay ciidamo caalamka u dirsan jirtay Turkiga loo diri jiray Uganda loo meelo badan loo diri jiray tan Eritrea ciidamadii loo diray waxay kaga gadisnayd samay ahayd wasaaradda gaashaandhigga laga qariyay baarlamaanka laga qariyay hooyooyinkii iyo aabayaashii ilmahoodii laga qaatay ayaa ayagana laga qariyay taa marka hore nooca daato natiijada ka dhalanaysa marka arrintaasi waxay tahay maxamed Abdullaahi Farmaajo Isaayas Afwerki iyo Fahad Yaasiinki mise kaliya ogaa ayagana qorsho ay wateen ay rabeen ciidamadaas inay u fuliyaan oo ah wadanka inay dabalabtiin xoog ugu qabsadaan saasay rabeen si sheegay khashultu meel bacaan ku joogtaan marka waxaan rabnaa marka hadda wax yar inaan ka dhageysano idii xaqiijiyo waalidiintii ilmaha dhaleen laba kamida iyo waalidiinta oo dhan waxay ka yiraahdeen oo wadanka Soomaaliya qaybihiisa meelo kala duwan jooga maxay ka yiraahdeen sababihii dalkiid ma ciidankan dalkiid ma loo tababaray aynisu hormariyo waalidiintaasi waxay sheegaan in ciidamadooda been loo sheegay been sida wasaaradda gaashaandhigga been loogu sheegay sida baarlamaanka been loogu sheegay sida shacabka Soomaaliyeed been loogu sheegay ayaa waalidiintaasi ilmahoodana been loogu sheegay sadarteed intaan la gaarin maxamed Abdullaahi Farmaajo xamar jooga taageerayaashiisa oo kamid yahay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hadda gudoomiye ku-xigeenka maaragtay Allahumma salli ala sayyidina Maxamed amniga iyo dad kale oo taageerayaashiisa oo fara badan waxaa lagu madax kamadeyn karaa afduubashada ay afduubteen ciidankaas beenta ay u sheegeen ka qarinta ay amniga wadanka ka qariyeen arrimahaas waa lagu maxkamadeyn karaa ciidamadaas soo laabanayana in xor loo siiyo waaye inay wadanka u dagaalamaan iyo inay guryahooda aadaan xor cid la khasbi kara ma jirto la ikraha fi diinta islaamka xataa la iskuma khasbi wax khasaba ma jiro ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea ciyaalkana programsha waxay yidhaahdeen qadar baa dad loo qaadayaa xerada qadar buu galay meel nabad sugidda meeshaas mudane Abu Luqmaan waxaan jeclaan lahaa inaad soo qortid inaad si fiican ii maqlaysaan macnaha telefoon barnaamijka inaad si fiican u maqlaysaan in kale dadka laga qoray qadar ahaan baana dadka loo qoray kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii 9aad la soo hadlay wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritrean joognaa saasaaban uga war helay hadda halkee buu joogaa wiilkaagu ma hubtaa 100% meel uu joogo hadda anugu mana hubo mana ka warqabo asagu bishaas uu soo hadluu yidhi Eritrean joogaa tababar baa i xirmay inba ka dambaysa wax waran aan ka hayo male qayladhaantaan dambana dad baa keenay waxay yidhaah niman oo wariyaal oo facebookyada soo dhigay waxay yidhaah niman ciidiyaalkii dagaal baa la geliyey kabacdi dad badan annagoo hadalay facebookyadan ku jirnaa waxaan nidhi dowladda codsanay in nala tuso ilmahayagii ama jawaab nala siiyo ama caddayn nala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin in ilmahayagii nala tusaa rabnaa waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019 aniga asaga waxaana dhex martay wuxuu yidhi aaba qadar baan u socdaa qadar baa dad loo qaadahayaa halkaana wax shaqaa iyo wax nolol waxaad arki doontiin caddayntii ugu weyneed idiin soo socota in Fahad Yaasiin uu ka been sheegay idaacadaha caalamka hortooda Geylaan ninka markuu u warramayo wuxuu yiri aniga shaqo kuma lihi ciidamada xoogga dalka beentiis wasaaradda gaashaandhigga ma ogeyn baarlamaanka Soomaaliya ma ogeyn shacabka Soomaaliyeed ma ogeyn askartii la qaadayo ma ogeyn waalidiintooda ma ogeyn dana gaara ayaa laga watiyay ciidankaas waana la afduubtay mar labaad in xorriyadooda loo soo celiyo waaye haddana afduubashu ku haystaa Eritrea isma aqaan sababta uu wajigooda noo tusi waayey oo loo qarqarinayay ciidamadaas in waddanka lagu soo celiyo oo la yiraahdo waa war ma dagaalamaysin waddankiina ma xoreysanaysin
mise dadkiinaan kaleeto meelaha fadhiyaad ka mid noqonaysa kuma haysto shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi adiguna maxaa tiri aniguna okay qalinkaan ugu duugo eritrea inuu joogo goormaad ka waraysa 2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlo wuxuu yidhi eritrea la geeyey muxuu kuu sheegay inay ka tabtaan eritrea tababar baa naloo furuu yidhi xerigaan ku jirnaa ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka tigray eedayntaasi oo galka tan macnaha maaragtay tigrayga in la geeyey in kale arrintaas dood kaleeto waa laakiin aniga hadda muhiimaddan ammaanta leenahay waxay tahay inaan idin xaqiijiyo in ciidamadaas dabalabadi ku idmaayay la afduubtay ay afduubteen fahad yaasiin ninka la yidhaahdo allahuma salli calaa sayidina maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa afduubtay saa darteedna waa in labadoodaba lagu maxkamadeeyaa faldambiyeedkaas ay ka galeen hooyooyinkaas iyo aabbayaashood soomaaliyeed ay ka aamuseen oo ay diideen dabalabadi ku idmaayay inay wargeliyaan xaaladooda oo ay intay maaragtay telefoon xataa ay u diideen inay mudaharaadaan oo la socotin xabadaa lagu furay hooyooyinkii iska dhaaf in loo tago oo loo warramo oo lala ooyo sidoo xasan sheekh sameeyey aflagaada iyo cay iyo lahaddana lagu hayaa dabalabkeed iyo dabalabki in laga aamuso marka way afduubteen ayagoon xor ahayn bay waddankaas geeyeen waa in la maxkamadeeyo dabalabkeed oo hooyooyin maxamed abdullaahi farmaajo in arrintaa lagu maxkamadeeyo waa dalkeed xamal uu joogaa dalkeed looga yeeray maxkamad sababta uu u qariyey in ciidankaas hooyooyinka uga qariyey wasaaradda gaashinka uga qariyey baarlamaanka soomaaliya uga qariyey madana gaaray rabeen asagay isaayas afwargi inay ka fushadaan dabalabkeed waddanka soomaaliya aan dhegeysana marka caddaynta ugu weyneed kabacdina maxaa dhacay kadib marka diina isku ogeen xilligii aan goorma maana xilli kasta anaga kuwa ayna yareen ilaa haddana waxa ugu camacaya dhinaca kale waxaa dowladda soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysa dhalinyarada loo qaaday dalka eritrea dhegeysta si fiican u dhegeysta haruun macruuf wuxuu idiin sheegi doonaa dhammaan qoysaskii kala gedesnaa oo min laascaanood ilaa hargeysa ilaan ogow ciidankan anigana waagii waan sheegay xarunta waxaan ka shaqaynayay maaragtay galcad masegawaay ceeleer markii dambena loo bedelay heega shacab africa confidential qorta 2019 in la bilaabay in ciidamo si sir ah looga daabulo soomaaliya eritrea la geeyey ciidamadaasi waxay u badnaayeen beelaha digili marafle iyo beelaha daarood isaaqa kusoo xigay hawiyu kuma jirin maxamed cabdullaahi farmaajona waagaas wuxuu lahaa ciidanka xoogga dalka waxay u badan yihiin beesha hawiye waa in macnaha laga dhigaa ciidan soomaali oo waa sax ah laakiin maadaama dowladdu ay ka howlgelaysay dhul beelaha maaragtay digili marafle iyo beelaha hawiye ay u badan yihiin ay ka howlgelaysay iska dabiici ay ahayd ciidamadana inay beelahaas u bataan taasay dawladeed saasay iska dabiici ay ahayd waagi hore tan ciidamada dowladda federaalka ciidamada oo dhan waxa lagu bilaabay hawiye waxa soo xijiyay niman dadka majartaan soo xigay oo markii dambe dalkeedna koobil oo jiray qaarkoodna markii Puntland isaga laabtay ama ka tagay markii Cabdullaahi Yuusuf uu ka tagay shay iska dabiici laakiin asagu qorshahaas uu watay saa darteed looma marin wadadii saxda ahayd qaab sharciga baalmarsan ayuu hawshaasi u maray dabalabadkii dana gaara ayuuna ka watay ay kamid ahayd nidaamka kaliya talisnimada iyo waddanka Soomaaliya laga yagleelo in dhunta la iska jaro in maxamed siyaad bar wuxuu sameyn jiray waddanka martuma laga sameeyo in dadka cidiyaha laga siibo waana midda hadda taageerayaasha maxamed abdullaahi farmaajo ay weli damacsan yihiin inay marlabaad soo celiyaan oo ay xamar ka bilaabaan oo ayna ka bilaabeen xilligii fahad yaasiin dabalabkii maayay taageerayaasha maxamed abdullaahi farmaajo waxay rabaan inay waddankan dad ayaga u nacamleeya sida lafta gareen oo kale meel walba inay geeyaan Puntland ay rabaan inay geeyaan Jubbaland ay rabaan inay geeyaan haddana weli way damacsan yihiin hawshay wadaan sidii usoo noqon lahaayeen in laga diyaar garooba loo baahay war in laga diyaar garooba waa idin digi hadda aqoonyahan xagga siyaasadda aan ahay muddo badan arrimahan u darosayay farmaajo wuxuu rabay maxamed siyaad barri Soomaaliya inuu noqdo oo dadka cidiyaha ka siibo haddana sidaas lala damacsan yahay waddan ogaada loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Qatar kaasi oo lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka Qatar si uu uga soo shaqaysto waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ah halka waxaa intaga cadaatay Haruun Macruuf dadkii kala gedisnaa ee Soomaaliya qaybaheeda kala gedisnaa joogay dhammaantood inay yiraahdeen been ayaa naloo sheegay waxaana lagu yiri Qatar tagaysiin koobka adduunka wax ka wardiinaysiin ayaa lagu yiri been baa loo sheegay waa la khiyaanay waalidiintoodna waa laga qariyay
halkaa marka Fahad Yaasiin ayaana hawshaas waday arrintaas arrin qarsoon ma Fahad Yaasiin ayaa hawshaas waday waxaana caddayn u ah caddaynta kuwad waa taas development idmaayay article-kaas lagu soo qoray caddaynta halkaas ku qoran tahay dadka meesha ka hadlayna waxay ahayn dad wada khubaro ah oo development idmaayay ku takhasusay si toos ah barnaamijkaas uga shaqeynayay ayay dhamaantood delegate ma ahaayeen ma ahayn dad delegate idmaayay wadooyinka iska taagan dad aqoon u leh oo barnaamijkaas gacanta ku hayeen niisa hawshan ka dambeysay Fahad Yaasiin ka dambeeyay asaga dadka qoray dadkii Soomaaliya joogana waa sheegeen ila kala duwan ay ka imaanaysa arrintaas arrin xaqiiqo Fahad Yaasiin marka bambu sheegay markuu idaacada ka hadlayo yiri arrintaas kiiskaas aniga siyaasadda kaliya aan ku ogahay delegate idmaayay wasaaradda gaashaandhigga hawshan asaga hawshan gacanta ku hayay arrinta marka waxay kaliftay ilaa hadda Fahad oohin habeenka lama seexdo oohin ilaa hadda habeenka lama seexdo oohin waa uu yahay habeen walba dalka maxay taas sababtu oohinay asaga farmaajo habeen walba waa ooyaan wal in hadiisa indhaha ku ooyeen niyadii ku ooyaan oo maxay saas u sameynaya waxay ka faa'iideysteen waxa la aaminsanaa Fahad inuu ahaa wakiilka dawladda Qatar Soomaaliya u jooga Viceroy Qatari Viceroy raayil caamkaas laga aaminsanaa milkiilaha dawladda inuu laga aaminsanaa marka maadaama uu yiri qadaran idin geyna qof walba wuxuu waran ninkan xiriir leeyahay dawladda Qatar oo ku matala meesha isaga keentay lacagta Qatar oo farmaajo uu ku keenay meesha saas la aaminay dawladda Qatar marka arrintaas waxay tiri war ninkani marka idaacadiha meel walba lagu soo qoray idaacada dawladda Qatar la idin wada dawladda Qatar la idin wada dadkii Qatar naftigeeda baaritaan sameeyay waxay ku ogaatay in Fahad Yaasiin arrintaas uu ka dambeeyay oo magacoodii si xun u isticmaalay maalintaas markii waxay yiraahdeen gow mar dambe Fahad Yaasiin iyo cid uu wato ma taageerayno waa kaas hadda markii guriga qolka ku xiran turkiga fadhiyo dalgin asaga xataa aqal darro iyo aqoon darro iyo xisaab xumo ayaa u geysay laakiin wuxuu ku fakirayay dadka qaarkood oo aad u yaqaan ay leeyihiin wuxuu ku fakirayay war haddaad ciidan 5 kun dhisataan ilaa 10 kun ay dhisataan dalku dhan qabsan kartaan taas ugu baahan waxa kale xusud mudan farmaajo 5 kun oo ciidankaas sheegay laakiin khubaradu waxay sheegeen inay ka badnaayeen ma laga yaabaa mar Globe and Mail ila journal la dhaho Canada ka soo baxan wuxuu sheegay oo waraystay saraakiil Ethiopiana oo Tigray ka dagaalamayay iyo madaxdii hore ee taageersanaa Abiy Ahmed ee Tigray xukumayay uu kamid ahaa ninkii maaragtay gudoomiyaha dawlad deegaanka Tigray iyo dad goobjooga fara badan waxay sheegeen ciidamada Soomaalida in la keenay hub loo dhiibay dadka xasuuq oo gowrac leeyahay ujeedada laga lahaana waxay isaas haborgin iyo lawriya dambiyaad gashaan idaacad oo telefoonada waa laga duuxo laga duubay haddaad Soomaaliya markaa tagtaan hawsha aan wadno aad fulin weysaan dalkiid ma idaacadaha meel walba gelinin inaad duum gashaan dalkiid asaga markuu iska ilaalinayo inuu dambi galo waxayna arrintaas dhacday November 2020 sida Globe and Mail soo gudbiyay ilaa 2021 awaailkeedii markii idaacadaha soo shaabaxday in ciidankaas Eritrea waa la soo celi Eritrea naftigeeda cabsanaysa in maarka arrintaas dalkiid ma lagu ogaado soo baaritu ahaatay meesha lagama saari karo in ciidankaas qaybo fara badan oo ka tirsan ay ku dhinteen gobolka Tigray lagama saari karo hawsha meesha waayo khubaradii ayaa sheegtay inay 5 kun ka badnaayeen marka arrinta marka waxa loo baahan yahay madaxweynuhu guddi gaar ah inuu u saaro oo madax banaan oo aan dhanka mucaaradkana jirin muxaafadkana aan jirin oo si cadaalad ah u soo baara hawshaas waxay qayb ka ahayd arrintaas arrimo fara badan Abdullah Farmaajo uu ka aamusay arrinta qabray waxa kamid ahayd arrimo kale oo aan la soo koobi karin kamid oo Ethiopia u dhiibay oo yiri Ethiopia ninkan ka laakiin aniga taageera waddaniyadu uu sheegay wuxuu sheegay meel intuu iska dhigay wuxuu ahaa nin rabay waddankan nidaamka kaliya talisnimada oo ka yagleelo dadkana cidiyaha ka siibo argagaxsan heshiis la galo asaga Fahad Yaasiin taasi dimaasi taageerayaasha Farmaajo in badan oo fiican waa ku jiraan laakiin intooda badan Soomaaliya ogaada waxay rabaan inay cidiyaha idin ka siibaan dalkiid waxay rabaan nidaamkii kaliya talisnimada oo isaas afwarqi oo kala iska fadhinayo ninka uu iska fadhinayo 20 sano ayay rabaan waddanka hirgeliyaan niman aaminsan doorashada ma aha doorashadii hadda dhacaysana caqabad walba oo dhigan karaan waa u dhigan waxa kaliya waddankaas uga tagan waxay zuugi badbaado qaran oo afkooda la soo dhigo liila dalka ka bixi weysan meesha villa Soomaaliya ugu soo galina waa in laga diyaar garoobaa inaysan nagu soo noqon ayadoon gobolka Banaadir uusan dawlad goboleed noqon waa inuu dawlad goboleed walba ay xukumaan dadkiisa ah dadka matala oo hub iyo ciidan haysta hadii shaka loo galo dagaal la geli kara dalka deegaanadu difaacan kara saasuu ogaada dalkiin saasuu ogaada Allahumma hal balagtu ilaahu ma gaarsi taageerayaashaasi caddaynta aan hayno waxay farta ku fiiqaysaa waddankaanu sida shabaabka oo kaleeta ma aaminsana dimuqraadiyad iyo shuuro dimuqraadiyadii shuuro waa isku mid in talada dadka gacanta loo geliyo argagixisadan maaragtay dalkiid ma ayaga xataa dalkiid maayay saasi aaminsan ayagu waxay ma ogola taladan dadka iskala sida aayadda quraanka ay qabto الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون
talada dadka dhex taala dadka askar cidii doontaan dooranaya ninkii doona xilaad ay ka qaadayaan argixisadu taa ma ogola xag jirka farmaajo taageersan taa labada ummad intaas ka midaysan taas ku midoobeen فهدياسين جروب وحين أبدين هين ضد بيلاها يريرو كتر سنة إسلا عدد صوت دورنا إس قبيل إذا كسر دورنا ور قبيل محد يقول دور الشخص اسمه وضنا كده عايز تحضر ضد نملا الأورو تحتم ذلك كده مركب ضد نوع عسى دلو إسكت هذه قبيلة يرتين ميل جاري ميسان هذا ذلك كده ضد كألن جورعين وحدين وحقرحين ذلك وعيون نوع ذلك كده أمزين ذلك وعسى أمزين وعسى أمزين أما هجوجان بنتلان أما حمر هجوجان أما كسماعي هجوجان أما هيرشبيل هجوجان أما قلمد وعسى أمزين ورترتم waddan kan u dagaalamo waddan kan in talada ummadda Soomaaliyeed gacanta loo geliyo hadalkiin ma oo marka qofkii xirfad iyo karaamo iyo dadnimo la taageero taas ay uma ogola argagixiso hadii ahaan lahayd argagixisada cilmaaniga ah iyo hadii ahaan lahayd argagixisada walaadka labaduba inta ma ogola waa cadawga ummadda Soomaaliyeed sax loola fahmo dalkiin waa jiraan dad fara badan oo taageerayaal Soomaaliyeed kamid ah oo taageer aaminsan dalkiin is xukun aaminsan talada dadka loo celiyo aaminsan dalkiin ma sin nabad in xukunku lagu kala waajiraan laakiin badankood waxa waaya dalkiin guul wadayaashii maxamed ka baraka hareen dalkiin guul wadayn hadda ilaa haddana waa wada guul wadayn iyo lacag yar in la qaato dalkiin ay ka shaqeeyaan wadanka hadda koorna waa laga xoreeyay haddana waa laga xoreeyay laakiin xorriyadaas waa in la saldhigaa aysan mar dambe u hawaysan dalkiin in dad ay wataan meelaha geeyaan yiraahdaan waxana loo gabyo hana loo shirbo dalkana loo heeso hadda balabkiina saan hana loo yeelo kan hana loo yeelo waxaas in laga diyaar garoobo waxaas in laga diyaar garoobo cadawgaas ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada iyo xag jirka farmaajo taageersan labadaba waa cadawga ummadda Soomaaliyeed waxay rabaan xukunka inay gacanta inta ku dhigaan sida shabaabka kale ku yiraahdaan shariicada islaamka kugu xukuma shacab iyo masaakiin iyo yaanya gadanaysan ay qarxiyaan shacab iyo masaakiin yaanya qarxinaysan ay qarxiyaan oo seel isku waafajinaa marka dadkan haddaad u dagaalamaysid oo madal giidmaayo ummadda muslimiinta wanaagooda aad ka shaqeynaysid ya wama yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam sa'udir waxay raamay anagu muta'ammid maahayn kas uma dilin shacab taasina oo magaalo markaa wax qarxa soo gelisay oo ogtahay inuu shil dhici karo gurigaaga aduma wax qarxad ilmahaaga dhex dhigi kartaa oo ogtahay aqligeeda ma sameeynis kaas waxaad ka cabsanaysaa in waxun khaldamaan maxaa marka ummadan u soo dhex dhigaysa waa beentooda shariica islaamna ma wadaan waxay rabaan wadankan inay xoog ku qabsadaan kabacdina waxa ay rabaan ay suubiyaan marka waxa loo baahan yahay gudaha iyo dibadda in iska kaashada la taxaway waxaa jirta marka iyadana hadalkiid ma hadda aan soo dhigaya in arkaysiin in kale aan aqoon aniga lacagtii ugu horeysay waa u diray hadalkiid maayay waxaan u diray dalkiid maayay gurmadka abaar haddana waa soo dhigaya dalkiid ma Facebook aan soo dhigaya ina arkaysiin kala maaga waa soo diray Facebook na soo diray idinkan waxaan kula talinayaa inaad dabalabad ku idmaayay aad $100 kodooda waxaad gurmadka abaar u dirtaan dalkiid ma ka qayb qaadataan abaartaas halo awa ku jirta hore u soc walaalkay waa ku salaamay dadkana dhegeystayaashana waa salaamay xaqiiqdii aan la inkiri karin meeshaan horta taariikhda soo mara dadkii waxay madaynaysa waxba ka baran laakiin haddana gunta usoo dogo waxa waaye waxaaba dembiya maantadan inay nabad ku dhex joogaan dufaan xoogga wadaniyiinta CPP qabeelada hawiye iyo ninkan mangiste macnaa ina farmaajo iyo waxaas ma aqaano talyaaniga waxa waaye waxaas dulliga intii meesha joogaan oo nabad ku joogaan waxaa ceeb ku tahay macnaa waxay ahayd dadkas maantadan tiirka la geeyo waxay ahayd ciidanka badbaado qaran in loo dhiibo caasimada in howlgal rasmi la sameeyo guri loo galo la baaro guri walba oo ku yaallo ay joogaan haraagii faqashta la galo haddii kale meeshaan waxa lagu jiifaa nabad qiyaaliya xasan sheekhna dembi waxaaba ugu filan naftarkiisa inuu kasoo tago ciidankaas inuu kasoo tago mahayn ciidankaas waxay ahayd inuu dhaha waa in la diraa ani kadib aan dhoofaya marka ayaga lasoo diro oo la keeno nasoo dhoofay ahayd haddii xamar uu ka baxsado farmaajo ama xarmaajo iyo haraagan faqashta ay baxsadaanna dembiga asagaa la wada wareegaya runtii lisu sheega fiican xisaabtan rasmiyaa loo baahan yahay meeshan waxa waaye meelaha yararka uqdadaysan xukuumadda waxay u imaadeen revenge fahad yaasiin waxa waaye adeerkiisa booskiisa buuxiye ana gulwade cabdiraxmaan gulwade oo gabarka qaba afweyne beelihii yararka uqdadaysna waxay isu qaybeen laba qaybood qayb waxa waaye al-shaadiina ku biireen qaybna waxay ku biireen kooxdan faqashta oo filada joogta
labada groupna waxa way hal ideology qaban oo ah inay beelaha waaweyn ka arkoostaan ama dagaal waxay ku yihiin majarteen hawiye iyo ogaadeen saddex beelada ugu weyn inta talaaniga ugu maysanay weligood lama arkin ayagu isku qarxinaya burco laascaanood buuhoodle ama gado waxay isku jihaadaan hawiye waxayna dadka isqarqaxaya inta badan ka keenaan raxan weyn meeshan waxa waaye dagaal qarsoona socda beelaha yararka revengewada oo qadaysan magac diineed ku dhuumanaya magac kheyra jaban oo wadaniyad beena ku dhuumanaya meesha xaqiiqdii waa in loo soo jeesto runta la isu sheego haddaan meeshan lagu kala bixin faqsh sideedii kumis ugu soo wadaa intii xamar dhex joogaan doofaan iyo xooga wadaniyiinta iyo ciyaalweera wax la yidhaah nabad ma jirayso runta la isu sheegaa fiican xisaabtan rasmiya xasan sheekh waynu sameeyaa waa inuu ciidan haddii rabaan 10 kun oo wacislaha keensado doorba isaga ilaaliya oo u gaara meeshan awooda loo baayaa barya mataal iyo soomaali qiyaaliya soomaalinimo ma rabto inta labada soomaalinimo ma rabto waarta jabuuti soomaalinimo ma rabto dadkan koonfureed waa inay maamulkooda samaystaan xaqiiqda inay soo riga fiican waa in marka hore meeshooda ay gacanta ku qabtaan nadaafad macna ka nadiifiyaan faqashtaan iyo alshaadiin waa maanta walaalka dad kala busantayna aad oo maasanta mudan qaar sababta barnaamijka intaas ku soo gabeynayna qofkii kale to dalkiin ma fikradiisa qaban waa siinayna hadii kale tan khayran isku ognahay waxaan rabaa meesha aan ka xaqiijiyo in sida ugu dhaqsaha badan adabalkiin maayay maamulkii gobolka banaadir loo dhiso sida ugu dhaqsaha badan maamulka gobolka banaadir taliya booliis Soomaaliya ayaa wuxuu leeyahay gobolka banaadir xukuumadda dalka sax ma waa in loo kala qaybiyaa barnaamijka laba qaybood gobolka banaadir waana caasimad ummadda Soomaaliyeed booliiska federaalka ah inuu qayb ku yeesho waana dalkiin ma goboladii waddan ka tirsan gobolkiina inuu maamul gaar yeesho marka sida la isku waafajin lahaa arrintaas arrin xogaa yar farsamo u baahan waaye laakiin mudnaanta koowaad waxa iska leh amniga gobolka shacabka gobolka ku dhaqan iyo maamulka dalkiin ma iyada ilaa gacanta loo geliyo lacagta ka soo xarato ugu badanna wadooyinkan biyaha qarqanayaan dalkiin waxa kale oo ayadan inta aan ku daraya macaawinooyin fara badan hadda xildhibaanada iyo qaada xildhibaan Sacdiya hadda boosaasi geysay xildhibaano kale dalkiin meel kale geenayaan xildhibaan walbo deegaankii aad ka soo jeeday wax u raadi dalkiina qaabka lagu raadinayo wax asaas dalkiina hadii deegaanada gaarkood mucaawanaysa ka soo degan ogaada xildhibaanadina hadda balabadkiina ka gaabshay xildhibaan baasha hadda loo qaybsanayo dalkiina marka intaas aan ku soo gogaynaynaa cadawga ummadda Soomaaliyeed meel uu joogona hajabo cadawga raba waddankan inuu kaliga talisnimo ka dhisto hadduu ahaan lahaa isagoo diin ku gabanaya iyo hadduu ahaan isagoo ku gabanaya waddaniyad labadaba hajabeen waa in la dirraa meel uu joogo assalamu alaykum warahmatullahi